Soomaaliya waxay soo martay dagaalo badan oo shacab badan ay ku laadeen duniduna waxay ka ahayd daawadayaal colaadahaasi waxay ahaayeen kuwa qabaa'ilka Soomaalida dhexdooda laga hurinayay dalalka jaarka la Soomaaliya isla markaana lacago iyo waliba qarashaadna ay ku bixinayeen dalalka caalamka sida Mareykanka, Yurub iyo waliba dalalka Khaliijka Carabta dagaaladaasi Soomaaliya daashaday waxa u dheeraa abaaro xoogan oo ku dhufatay dalka saameeyna ku yeeshay dadka iyo waliba duurjoogta Soomaaliyeed waxaana ugu darnayd abaartii ku dhufatay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2011 abaartaasi ayaa waxa ay noqotay dadka Soomaaliyeed mid ay ku kala barteen walaalkooda dhabta iyo waliba kan aan u dirnixina dunida ay la yaab ay ku noqotay markii dawladda Turkiga ay gurmad aan horay loo arkin ay ka sameeyeen gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana ay isgarab taageen shacabka Soomaaliyeed waxaana ka sii darneed markii madaxweynaha wadanka Turkiga Masar Rajab Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare oo Muqdisho la yimid diyaaradda siday ku dhawaada shakhsiyaad gaaraya ilaa iyo 50 ruux waxaana shakhsiyaadkaasi ku jiray qaar ka mid ah qoyskiisa oo ay xaaskiisu ay ka mid tahay wasiiro ganacsato iyo waliba maalqabeeno xerooyinkii ayay booqdeen kaalmo iyo waliba gargaar walaaltinimo iyo waliba mid islaamnimo ay shacabka Soomaaliyeed la garab istaageen dawladda Turkiga intaasi kuma aysan joogsan waxay dalkeeda u qaaday arday boqolaal gaaray oo deeqo waxbarasho ay siisay waxayna Soomaaliya ay gashay jawi aad u degan waxaana dib u dhis ay ku sameysay wadooyinka caasimadda waxayna nalaysay wadooyinka ifka iyo waliba habsami u socodka ganacsiga ayaa lagu dhiiraday gawaarida ay habeenkii bilaabay inay isticmaalaan wadooyinka Muqdisho waxayna dawladda Turkiga ay dib ay u furtay isbitaalo goobo waxbarasho goobo caafimaad waxayna sidoo kale Muqdisho ay ka hirgelisay terminal casri ah oo dunida la jaan qaada waxaana diyaaradeedii ugu qaalisan ee Turkish Airways ay duulimaad ay ka bilowday magaalada Muqdisho iyo waliba magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga diyaaradda Turkish Airways ayaa duulimaadkaasi waxa uu noqday mid ay ku najaxeen ummadda Soomaaliyeed arinta ay caalamka ay la yaabeen ayaa waxay ahayd markii dawladda Turkiga ay Soomaaliya ay ka hirgelisay safaaradeeda ugu weyn caalamka ya Allah bismillah madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si ka duwan sida loo soo dhaweeyo safiirada u soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga xilligii loo soo magacaabay dalka Turkiga dawladda Turkiga ayaa ah dawlad aan ku soo xadgudbin madaxbanaanida Soomaaliya waa dawlad aan bixin lacagaha kaashka loo yaqaan badalkeeda waxa ay diyaar ay u tahay in mashaariic ay ka hirgeliso dalka Soomaaliya balse madaxda Soomaalida ayaa inta badan waxa ay daneynayaan lacag kaasha haddaba dawladda Imaaraadka Carabta maxay Soomaaliya ay ka qabatay dawladdii hore ee kacaanka waxay taageero dhan walba ay siin jirtay dawladdii Imaaraadka Carabta waxaana taasi lagu xasuustaa beerta weyn ee Sheikh Zayed laga siiyay degmada Afgooye haddaba Imaaraadka Carabta abaalkii lagu lahaa maxaa ay ku guday
safaaradda imaaraadka carabta ee Soomaaliya ma bixiso fiiso ama dalkugal haddii ay bixisana waxa ku xiran shuruudo adag sidoo kalena dawladda imaaraadka carabta ma bixiso deeqo waxbarasho balse waxay taageero ay siisaa maamulada dalka oo mid walba ay hubaynayso waxayna hub kala gedisan ay ugu deeqday maamulada Koonfur Galbeed Jubbaland iyo waliba Puntland imaaraadka waxa uu si toos ah u cadeeyay inuu faragelin uu ku hayo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii hogaamiyaasha maamulada uu isugu yeeray dalkiisa si ay ugu hogaansanaadaan danihiisa gaarka shirkaasi ayaan la ogeyn wixii ka soo baxay balse shaki kuma jiro in imaaraadka carabta aysan raali ka ahayn in ay cagaheeda ay su taagto dadka ama dawladda Soomaaliyeed diyaaradaha isu taga imaaraadka carabta laga leeyahay sida Emirates iyo waliba kuwa kale oo ka howlgala caalamka ma yimaadaan garoomada dalka gaar ahaan garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada caasimadda ku yaala imaaraadka carabta waxa uu ka duulayaa dan ay weheliso cadaawad iyo waliba in dalka Soomaaliya uusan dib dambe lugihiisa isugu taagin dawladnimo uusan yeelan waxaana sabab u ah kor u kaca ay yeelato muhiimadda Soomaaliya waa hoos u dhaca muhiimadda imaaraadka carabta waayo Soomaaliya waa dal dihin kheyraadkiisa aanan wali la soo saarin amaba aan la daafurin afkana ku haya marin biyoodka baabul mandab iyo waliba badda cas sidoo kale imaaraadka ayaa waxa ay bilaabeen siyaasad cusub oo si gaar ah ay kula heshiinayaan maamul goboleedyada dalka ka dhisan maadaama uu doonayo inuu kala gooyo Soomaalida imaaraadka oo eegaya dhaqdhaqaaqa Turkiga ee Soomaaliya ayaa saldhig military doonaya inuu ka dhiso magaalada Berbera maadaama Turkiga ay saldhig weyn ay ka hirgelisay duleedka magaalada Muqdisho imaaraadka iyo Turkiga labaduba dana ay ka leeyihiin Soomaaliya balse sadar muuqda su'aal ka dhan